سلام الله ورحمته عليكم يا معشر المسلمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، ولا ليال مالك خميسة ومالك سقالات بشذي الحجة أما عرفة كمدة. ولا ليال مالك كاسي ومال آدي قيمة بدن waa maalin dadka muslimiinta ah looga baahan yahay inay soomaan. waa maalin qof kastoo muslim ah aysan u habboonayn inuu soomka maalinkaasi ka tago. sidaad ogtihiin oo la socotaan, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay in maalinkaas soomkeeda lagu dhaafo 2 sano dembigooda, sanadkii tagay iyo sanadka soo socda. weliba dunuubtaas la dhaafayo oo maalinkaas lagu dhaafayo soomkiisa waa dunuubta saqaa'irta ah, ama kuwa kabaa'irta ah waxay u baahan yihiin toobadkeen. culummadu waxay ka hadleen sanadka soo socda qofka loo dhaafaa bisababi hada siyaam. waxay yidhaahdeen waa labadaasi oo kale ah qofka in markuu maalinkaasi soomo ilaahay subxaanahu wa tacaala sanadka soo socda wax dembiya uusan waafajin bisababi hada siyaam, ama ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka inuu u dhaafo sanadkaas dunuubta uu la yimaado haddii uu maalinkaasi soomo. walaalayaal, maalinka carafo oo ah maalinka 9aad bisha dilxija waa maalinka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dadka naarta ka xoreeyo maalinka ugu badan weeye, sida nabiga calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegayo. oo nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam: maa min yowmin akthara min an yuctiqa allahu fiihi cabdan min annaar min yowmi carafa. waa maalinka ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka uu ka xoreeya naarta maalinka ugu badan weeye. maalinka 9aad ee bisha carafa ka mid ah waa maalinkii diinkan nabi maxamed lagu dhammaystiray calayhi salaatu wasalaam. saxiixaynka waxaa ku sugan cumar ibnu al-khadaab ayaa waxaa u yimid nin yahuudi ah, markaasuu wuxuu ku yidhi: yaa amiira almu'miniin, aayatun fii kitaabikum taqra'uunaha low calaynaa macshara alyahuudi nasalat latakhadnaa dalika alyowma ciida. wuxuu ku yidhi mu'miniinta amiirkoodiiyow, aayad kitaabkiina qur-aanka ku sugan oo maalin kasta aad akhridaan, annaga yahuudda ah hadday nagu soo degi lahayd maalinkaas ay soo degta aayaddaasi waxaan ka dhiga lahayn ciid. markaasuu cumar ibnu khadaab wuxuu ku yidhi: ayu aaya, waa aayadee? markaasuu ku yidhi: alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina. cumar wuxuu yidhi radia allahu canhu wa ardaah: قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم الجمعة. wuxuu yidhi aayaddaasi waa naqaanaa maalinka ay soo degtay, aayaddaasi waa naqaanaa maalinkay soo degtay oo nabiga ku soo degtay, nabigoo carafo taagan maalin jumco ah. riwaayaadka qaarna waxay ku daraan bacda salaati alcasr. walaalayaal, maalinkaas oo ah maalinka carafo waa maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhaartay kitaabkiisa dhowr jeerna uu ku dhaartay. sidaad ogtihiinna allah subxaanahu wa tacaala waa allah cadiim ah, walaa yaqsimu ilaa bilcadiim. shay weyn maahana shay kale kuma dhaarta allah subxaanahu wa tacaala. allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi: washaahidin wa mashhuud. xadiid uu soo saaray tirmidi, imaamu alalbaani uu xasaniyey. wuxuu leeyahay abi hurayra ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal: alyowmu almawcuud yowmu alqiyaama washaahid huwa yowmu aljumuca waalmashhuud huwa yowmu carafa. ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinkani wuu ku dhaartay meelo kale: walayaalin 10, 10kaas haddii la yidhaha waa 10ka dilxija u horeeya. maalinka carafo waa ka mid yahay. washafci waalwatri, culammada qaar waxay sheegaan in shafcigu uu yahay yowmul adxaa, maalinka 10aad ee ka mid a bisha carafo, walwatrina uu yahay maalinka carafo.
ولا ليال مالن كاني ومالن إلهي سبحانه وتعالى أي رحمات كيسو دقان ومالن إلهي سبحانه وتعالى ددك سيئات كأو كتر تره ومالن كالشيطان كأو عرودو سيان عادي أهين ومالن شيطان كأو نعبي هاي مركي أو أركو رحمات كألي أو دقية مركا صبوحو كشالايا أولي هاي ددكي انتاسو سنآن لمني إلهي سبحانه وتعالى هل مالن لبسنا ذنبي قد أقول ومالن إلهي سبحانه وتعالى ددك عرفت تاغن وإلهي سبحانه وتعالى وسودقيا سماء الدنيا أي أسودقيا ربي سبحانه وتعالى ونزولا يليق بجلاله وعظمته سيدي حديث كالنبي أوشيغيو إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي وهو لم يروني فكيف إذا رأوني الله سبحانه وتعالى وحو أسو دقيا سماء الدنيا أي أسو دقيا مركاسو ملائكة أويريا مركاسو تصيا دادكي بانك عرفتاقنا مركاسو الله وحو ليهي كواسي وأدومديدي نحريستيدا أي رجينا يعني يدن بدافكيغا عذابكيغانا وكعب سنيان mana i arag ee ka warrama hadday i arki lahaayeen markaasuu alla wuxuu leeyahay falow kaanat dunuubukum kacadadi ramli hadday dunuubtiinu tahay inta bacaadka tiradiisu uu la eg yahay ama kacadadi alqatri dhibicda roobka tiradeedu intay la eg tahay ama kacadadi zabadi albaxri badda burcadkeeda iyo hirka cadaanka waxa saaran haddii dunuubtiinu intaas la eg tahay لغفرتها وإذن دافي أفيضوا يا عبادي الدومديديو شبما مغفورا لكم أذنكو لذين دم دافي مركا مالين كاسي أجر كاس أيولي هاي وإن كفا إذا سنا وإن مالين كاسي حقي سأن قرنا وفرصة لغايا بقفك هدي أي دافتو إن يسن قدال وغسو نقون قفك مسلم كواحا لوبا هاي إنو مالين كاسي كد دارو وإنو الله بريو maxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ducada maalinkaasi la ducaysto inay tahay ducooyinka kuwa ugu khayrka badan markaasuu nabigu wuxuu yiri khayru du'aa'i du'aa'u yawmi arafa du'a alla lagu bariyo waa ducada maalinka carafo qofku waa inuu soomo soomkaasi uu niyeysto 2 sano alla inuu ugu dhaafayo handana qofkii waa inuu alla bariyo oo alla subhanahu wa ta'ala weydiisto inuu ka xoreeyo naarta jirkiisa waa inuu ka xoreeyo walaalayaal waxa nasiib darro Allah subhanahu wa ta'ala inuu quraankiisa noogu sheegay janno ballarkeedu leeyahay dhulka iyo cirka handana waxa laga yaabaa qofkaas waxa laga yaabaa nafsadaadu inaysan nasiib ku lahayn hal boos inaysan ku lahayn jannadaas intaas leeg waxa laga yaabaa inaadan wax nasiiba ku lahayn waa inaan dadaalno waa inaan nafaxaadka ka faa'iideysanay faa'iidooyinka waxa laga yaabaa inaysan ku soo laaban اغتنموا فإن الفرص والنعم لا تدوم